بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. داودياش قيمة يقايا بدميل بوجبتان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحلقات كي دعوة نوسع دي برنامج كي نعيش عاشقة. ساد ويدي هور لسعتين با وحا برنامج كي قيبيس هور نقصو قادني سؤال بدنا نسويدين نوغا جوابين ولا لهن شيخ أحمد جوهري بلال iyo walaasha Nibo Cumar mar labaad waxaan ku soo dhaweynayaa walaalahay waxa la ahlan wasahlan marhaban bikum ku soo dhawaada jazakallahu khairan ma sha Allah waxaanu maraynay hab dhaqankii isfahamkii lamaanaha su'aal baan rabaa inaan walaal hiba aan toos weydiiyo badana dhibaatooyinka reeraha waxa keena isfahm la'aanta badana keena in ninku markuu guriga u yimaado ay gabadhii hadal badan waxaad dhaaf ay ku hadlayso rag wax isweydiiyaan gabadhan hyperactive-ka maxay ahayd ninkii uu yimid ashaysi reerku sayihiin hadduu u bato laakiin gabadha iyada waxay rabtaa in ilaa iyo waqti badan ay sheeko ku qaadato waxaa dhici karta inay habeenkan kusoo celinayso waxay xalay ka sheekaysay same historygii ragga qaarka u adkaysa waxay leedahay gabadhan cudur baa haya waamaysaa marka maxaa keenay horta hadal badan waxgee ka timid seesa rag ugu dul qaadana sababta haddaad wixii fahamtid illadii fahamtid waxaa dhici karta inay faham aad u yeelatid baad mara kusoo dhow walaalo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد ولا ليلات بدو ما سنتها إن شاء الله إن سؤال شأني قوم ما دركتي كجوابية أنت إلهي كرنسيو إن دمركم حيو هذا البدنيين iyo dhibta ay raggu ku qabaan waxaan anigu oran lahaa runtii ragguna ma khaldana dumarkuna ma khaldana laakiin meeshaas isfahan la'aan ayaa ka jirta waxaa ka jirta maaragtay aqoon darri ayaa ka jirta labada qof isma garanayaan wiilka iyo gabadha isqaba waxa weeyaan qaab buu ilaahay u abuuray labadoodu waa laba shakhsi oo kala duwan marka abuuritaankooga iyo say u samaysan yihiin bayna ogeyn meesha uu ka imaanayo hadalkan abu ijaabo waxa weeyaan in haweeneyda ilaahay sidaas u abuuray maskaxdeedan baa waxay u samaysan tahay in maskaxdeenu sideedaba laba qaybood weeyaan qaybtan midigta ah iyo qaybta bidixda markaas inay xataa dhexda ka kala go-an tahay lama wada soo maaha waxa weeyaan labada hemisfeer baa la kala yidhaahdaa labadaba haweeneydu way isticmaashaa markay hadlayso ninku laakiin dhinac kaliyu isticmaalaa haweeneydu markay hadlayso qaybo badan oo brainkeega ah ayaa hawlgala oo hadalkii ka qayb qaata ninku laakiin meelo yaryar oo kooban ayaa unba activated noqda oo shaqeeya markuu hadlayo waxa weeyaan cudurrada ku dhaca hadalka dhinaca hadalka ku dhaca ragga ayay ku badan yihiin wiilashu hadalka way kasoo daahaan in luqada inay bartaan way ku adag tahay in ay si fluent ah oo u hadlaan way ku adag tahay gabdhaha yaryar iyagoo aad u yaryar bay hadal badan yihiin oo ay hadlayaan oo sheeganayaan balse ay wiilkii walaalkeed oo ka yar weynaa ay u hadlaysaa marka waxa weeyaan asalka hore waa abuuritaan laakiin abuuritaankan sabab buu ilaahay ka lahaa sababtu ilaahay ka leeyahayna waxa weeyaan haweeneydu hadalkeegaas purpose iyo sabab ayay leedahay sababta ay leedahay waxa weeyaan dumarku waxa weeyaan ayaga gurigii u haraaya ayaga ilmihii u haraaya ayaga maaragtay qof weyn iyo qof yar iyo wixii guriga lagaga tago oo dhan ayaga la jooga marka siday u kala wado hawlahaas oo dhan way u baahan tahay inay hadasho way u baahan tahay ilmaha afka ay barayso oo luqadii hooyo ay ku wareejinayso ilmaha barayso inay si constant la si joogta ula hadasho marka ka waran hadii ilaahay uu equipmentkii amba wixii uuna qalabkii ay waxa hawsha ku qaban lahayd diina la siin lahayn dib weyn ayay la mudan lahayd لأنه ويأمس لا تذا رجوا وأمسين بوأمسنا لهي هذا البضن دبكم هيان مركا محي هيدا إني هذا الشو وما ببهناتين لكن ما دام يشقد قبنيس أو علمه اللي قد بريس أو قف كي جوري اللي وقتك يضمر كوحة أول قاب وحلون ولا سيدي فمية بدن بعمل إسلاد دقن سيدي دوكيني بادي هو قريب مركا ريرهم مركا إسلاد دقنهين رجي بحايا ويسعونيان أم بشغها آذان أم بحولها الرعان أم بدنك لها قبطة ويكتجيان marka ninku badankiisu shaqada kalibu ku yahay uma baahna mujtamac inuu la hadlo iyo xataa haday shaqeynayaan raggu kaligood bay shaqeeyaan uma baahna hadal badan uma baahna
markay haweeneydii oo reerihii oo dhan iyo wax walba looga tegay waxay u baahan tahay dumarkii kaloo dhan baa jooga eeg waxaa jooga faamiyadii meeshaa deganaay oo dhan baa jooga dadkaasoo dhan waxay u baahan inay wada hadlaan marka ilaahay wuxuu siiyey facility-ga ay waxa ku qaban lahayd buu ilaahay siiyey tan kale intaan markaan kasoo gudubno waxay dumarku yihiin pressureka amba culayska koraya ee nafteeda diiq hadday dareento waxay iskaga saaraysa hadal haddii haddi weydo gabadha oo hadalka lagu celiyo amba la dhibsado runtii gabdhaas xanuun baa ku dhaca ani waxaan odhan lahaa marka wallahi bacda cilmi fara badan waxaa ii soo baxday in ay raggu ogaadaan inay dumarkoogu ay ka waramayaan lagaagama baahnaabu ijaabo wax badan waxaa lagu yihi guriga markaad timaadid haweeneydaadu 20,000 ayaa lagu qiyaasay marka research la sameeyey oo kelmadood inay gabadha ku hadli karto maalintii ninkuna 8,000 buu ku hadli karaa baa la yidhi qiyaas ahaan 8,000 hadduu shaqada markuu uu ku maqnaa uu 3,000 4,000 uu kusoo baabi'iyo kusoo isticmaalay intii uu soo socday asxaab iyo dadka iyo wuxuu la kulmoo dhan 1,000 2,000 ay ka cuneen guriga wuxuuba la yimiday isagoo 2,000 amba 3,000 haysta haweeneydiina 10,000 ba kaba soo qaad nus inay ilmihii iyo wixii ku bixisay 10,000 oo kaamila markay haysato odadna 2,000 maraysid farqi weyn baa idin dhexeeya marka waxa weeyaan inaad ogolaatid in haweeneydana hadlo markay sida aad u soo gashid ilbaabka uga soo gashidba hadal bay kugu bilaabaysaa waxay kaa rabtaa wixii maanta aad la soo kulanto dhan say wuxuu dhaceen oo dhan intaayoo su-aalood iyadu waxay qabatay waxay la kulantay hal mar bay rabtaa inay kuu dhiibto haweenkana waxaan barnaa runtii oo casharadeena ku barnaa in ay is-xakameeyaan oo is-celiyaan oo waqtiga la hadlo iyo waqtigaan la hadal ay kala bartaan raggana waxaan ku barnaa dhagaysiga wacan dhagaysigu muxuu noqonayaa markaa adi guriga imow baa lagu leeyahay haweeneydaadu markay hadlayso iska dhagayso sidaas miya ahaa iyo wad sheekada haye dhagayso fiican noqo labadaada dhagood ha ku bakaylin labadaada dhagood haweeneydaada haddaad amaahisid ood welibana tiraahdid waan kuusoo fadhiisano sheekadaadan caawa u baahanay tiraahdid wallahi way ku dhargaysaa akhiyow ani gabar waxaan aqaanaa soomaaliyeed oo magaalada nagula nool ninkeegu habeen iyo dharaar ayuu u shaqeeyaa reerkiisa laakiin waxay ku leedahay maba rabiba anu ninkan maxaa dhacay because ilama sheekaysto ilama hadlo dhinaca shaqada waa ku fiican yahay wax walba reerka usoo qabanaya wax walba khidmada you can't imagine laakiin waxay ku leedahay aniga intuu ila soo fariisto ilama sheekaysanayo markuu soo daalo horey buu ka jiifsanayaa dee ma rabi bay ku leedahay maba rabiba qofku hadduuba ani ila sheekaysanayn maxaa waxaan kale oo dhan iga galay ma garatay anfac badan ma laha anfacba uma arkaysaba ha ya ima jeclay ku leedahay marka waxaa muhiim ah qofkan badbaadadiisa ku jira akhiyo wallahi xanuuno fara badan bay dumarku kaga badbaadaan waa adiga arko telefoonada ayaa ku jira dumar baa ku jira meel kastoo hadal uu yaalo haweeney baa joogta ma garatay waxay u joogayso waxa weeyaan way u baahan tahay caafimaadkayga nus baa ku jira wax xun yaa loo arkin haweeneydana hala baro sida hadalkayga wax kameyn lahayd waqtiga la hadlo waqtigaan la hadal kelmadahan ilaahay uu weydiin doonaa sababtii loo siiyay ha u isticmaasho laqwiga badan inay iska dayso cilmi bay u baahan tahay inay ku hesho waxyaalo caynkaas ayaan kusoo koobsan lahaa runtii haweenku ma hadal badna laakiin waxaa la garan layahay sababta oo hadalka loo siiyey ayaa la garan layahay anagu islaahay maasha allah aad iyo aad baad walaalhiba u mahadsan tahay sheekh axmed waad maqlaysaa in gabdhihii intaasoo awooda ay u leeyihiin inay hadlaan walaashan aad bay nooga dhisay khayr allah badan siiya marka haddaan rag nahay sidee baan ugu bedeli karnaa walaash waxay tiri in gabadhii loo soo fariisto oo la dhegaystaa wanaagsan waa talo laakiin ragga qaarkood waxay u arkayaan daciifnimo ninkii dhammaayo madaxda ahaayo reerkii inuu maanta dhan gabadh dhagaysto qaar baa ku ornay waa nacnacbay maanta dhan wada islaantii waxaa jirta oo walaalo badan la soo gaarsiiyeen oo jirta inay raggii leeyihiin ni haddaa islaantii la sheekayso dee maskaxdayda mentalitygeeda baan yeelanayaa nacam waa naaqusayaa marka arrimahaas see lagu bedeli karaa horta ninka sidaa odhanaya isagaa miskiin ah inuu xaaskiisa la sheekaysto inuu caqligiisa ku naaqusmayo markiisa hore u naaqusyahay aad baana uga xumahay in ragga qaarkood ay saas aaminsan yihiin dumarka in lala sheekaysto in ay caqli xumo tahay fiiri sunnada markaan u noqono nabigeena sal allahu alay wasalam wuxuu tilmaamayaa uu ka dardaarmayaa istawsuu binnisaai khayra haweenka kula dhaqma si wanaagsan oo fiican
waxaa ku dhex jirta la hadla waxay u baahan yihiin u qabta ana khayrukum wa khayrukum liahli wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaam in halkaa lala shaqeeyo oo wax lala qabto qof aada wax la qabanayso hadal yacnaa suurtagal maha inaad ka bakaysho ood u diido waxaa meesha ku jirta akhi aqoon la-aan oy gabdhuhuna garanaynin maskaxda ragga siday u shaqayso sida hadda maaragtay hiba inoo tilmaanta kheeralaas ragguna aynan ku baraarugsanaynay ka warqabin gabdhaha waxa hadalbadida ka keenay ay sidan ugu yacna ugu hadlaan waxaa kale oo dawr ka ciyaaraya inuu ninku sidaad hadda sheegayso uu u fikiro dhaqankii waan ku celiyaa marar walba waayo ninka soomaaliga ah wuxuu ka yimid geeska africa geeska africa sida looga dhaqmayay iyo sida galbeedka maanta looga dhaqmo waa laba kala duwan meelo fara badan gobollo fara badan yacna inta badan in gabadh la dhegaysto way yaray waxaa always la dhegaysanayay ninka ragga tala weydiiya iyaga maaragtay ka dambeeya iyaga daba socda iyagaa hogaamiyaal ah iyaga marka meel la joogsanaya wax sheegaya intaas oo dhan ceebi kuma jirto waxa ay ceebi ku jirtaa qof dhan oo ilaahay caqli siiyey oo af siiyey oo uu ku beeray hadal ka ziyaadsan ninka oo uu ugu talagalay ilaahay subxaana wa tacaala purpose ujeedda ay leedahay loo siiyey gabadhan hadalka in lagaba furi waayo albaabka oo loo arko waali iyo maaragtay ka daray iyo maaragtay wax aan meesha olin marka waxaan leeyahay aqoon darradaasa jirta haddii la ina bari lahaa annaga oo yaryar fursadna gabdhaha loo siin lahaa in ay iscabiraan ay hadlaan ay sheegaan waxaa soo bixi lahayd in labada qof ay isdhegaystaan uu ninkuna yaraysanin gabadha ama uu u arkin waxaan qiimo lahayn waxa ay sheegayso gabdhuhuna laftigoodu ay iska duryamin un laftigoodu oo wax aan loo baahnayn mararka qaarkood ayna ku hadlin ay ku hadlaan wax maaragtay miisaaman oo maaragtay u samaynaya sense ninka laftigiisi waxaa jirta marka arrin runtii u baahan in lagu baraago qofkan maxaa ka keenay inuu hadlo inta badan culamadan oo u sheegaya inay ka hadlaan arrintaas waa muhiim xuquuq zawjeenka marka laga hadlayo inta badan ataxadda calaykum fiiriya culamada marka waxay ka hadlaan inta badan xaqa ninku leeyahay bes waa jiraan culamo kooban oo kusoo dara haweeneyda xaqa ay leedahay laakiin inta badan xoogga waxaa la saaraa tarkiiska xaqii ragga xaqa ninka uu leeyahay dhinaca kale haddii laga joogsado waxaa soo baxaysa ninka isagaa laga rabaa inuu tusaale noqdo isagaa laga rabaa hormood inuu u noqdo guriga isagaa laga rabaa in uu tuso suu nabigu u tusay sal alla alay slam waxa u wanaagsan gabadha iyo sida maaragtay u fiican intii ma hayno waxaan leeyahay marka gabadhu marka ay ku nooshahay sfiirkan ah galbeed waxaa jira culays badan oo koraya waxyaabaan ku kala duwannahay maalan raggu xubnaheena marka rag iyo dumar la fiiriyo hal bayna dheer yihiin gabdhuhu inta kale o dhan waa jir ahaan yani markaan ka hadlayo waa laga siman yahay waxay ina dheer yihiin xubinta raximka ilma qaadka ilmaha lagu qaado ilma galeenka xubintaasi waxay faa'iideynaysaa inay ilmaha kaaga dhowdahay hooyadu aad iyo aad bal fiiri waxay faa'iideynaysaa xadiiska nebigu leeyahay iyaad iigu dardaaraysaa saxaabiga ku yidhi inaan u samafalo uu ku leeyahay umuka uma umuka uma umuka fiiri hameen baad wada seexateen waad wada raaxaysateen adigu adoo iska nabad ilaahay baad ka soo kacday iyadana waa la raacay markii la raacay maxaa ka ratima xanuun badan matag badan cidhiidhi badan culays badan jirhkeeda maxaa ku dhacay marka waxaa ku dhacay isbeddel tiro badan aad iyo aad adigii markaad habeen kaa raaxaysatay kabacdi isbeddelkaas dhacay adiga kuma dhicin waxaa lagaa rabaa marka inaad isbeddelkii la wadaagtid ood dulqaadatid gabadha waxaa laga yaabaa hadalka maalan inay hadal badato xanuun baa ka keenaya ama jirhkeediioo isbeddelaya ama maskaxdeediioo
isbedelaysa dareenkii hormoonadii emotionkii ma fahantay guriga marka la joogo ee ninku soo galay gabadh maxay la hadlaysaa nin baa waxaa la weydiiyey su-aal gabadhaadu ma shaqaysaa baa lagu yidhi wuxuu yihi maya ma shaqayso haa ma shaqayso yidhi adiguna waan shaqeeyaa imise saacadood 8 saacadood waad soo rawaxdaa haa waxaa lagu yidhi marka waxaa la weydiiyey yaa dhariga kuu karay yaa dhar kuu feeraya yaa ilmaha naaska siiya yaa xanaaneeya yaa sariirta hurdada kuu goglas yaa dharka kuu wara yaa kuu hufuriya fadhiga yaa kuu shaqeeya raashin yaa kuu sii diyaariya adiga iyaa kaa shaqeeya wuxuu ku jawaabay iyada uma aragno marka nasiib darrada jirta uma aragno waxaasoo dhan inay shaqo tahay gabadhii culayskaa waxaa ugu ziyaaday culays kale oo banaanka hadday qaraabadii tahay hadday saaxiibadii tahay haddii ay cid kale tahay waxa ugu ziyaaday in adiga wax lagaa soo sheego war in loo keeno iyadoo gurigeeda iska fadhida telefon loo soo diro oo ma ka warqabtaa ninkaagi waxaa maaragtay sameynay iyada oo buuxdo gebigeeduba yani war ka buuxo baad gurigii soo gasho waa lagugu sii daaya war adigana sidii bombaladaad maaragtay qarax waxaa looga baahanya marka ragga qaarkood inay gabadha intay u dejiyaan ay dhegaystaan ay sugaan ka warramayaan see wax u dhacday see wax u dhaceen maxaad u baahan tahay pressure baa qofka guriga ku haysta ragga soomaaliyada galbeedka ku nool ee u malaynaya inay soomaaliya ku nool yihiin waxaan ku odhanayaa runtii oo anigu kamid ahay dabcan aniga laftigeeda waa ku wada jirnayna in gabdhaha fursad la siiyo oo fasax loo bixiyo routiinka in la jebiyo in la israaco hadalku wuu isbedeli haddii la israaco hadalku wuu isbedeli waqti quality time waxa la yidhaahdo in la is siiyo waxaan casharada ku dhignaa runtii hadda ka horna maaragtay aan anigiihib aan lagjar ku bixinay 5 shay oo labada qofi labaduba ay u baahan yihiin qof kastiba qofka kale 5 buu uga baahan yahay marka casharadina xalaqaadkeena soo socda ayaa ku dari doona insha Allah taala labadan qof marka ninkuna gabadhu waxay u baahan tahay laftigeedu iyada laftigeeda pressure ka haysta waa sheegnay soo ninkana pressure ka haysta waxaan ku yidhi hadda ka hor ninku maskaxdu ka daalaa guriga banaanka markuu ka yimaado guriga wuxuu rabaa in uu ku nafiso waa laba qof oo isweydaarsan runtii way isweydaarsan yihiin iyadu waxay rabtaa in ay ku nafiso hadalkii oo laga guro way cabudnayd maanta da sooma in laga guray rabtaa qofka ay isku fogaarinayso ama isku furfurayso waa adigi waa isagana uu daalan yahayba oo wuxuu u baahan yahay relax marka casharada waxaan ku darnaa saacadda iyo barka ugu horeysa walaashayga ninkaaga markuu banaanka ka yimaado hala hadlina sii fadhiga ha fadhiisto hanasto intaa markuu helo waxaad uga baahan tahay marka hadhowto maadka weydiiso maxaa yeelay wuxuu u baahan yahay process inuu kala dego maskaxdiisa ma qaadi karo hadal badan iyo canaan badan iyo qaylo rag qayli u turjumtaan hadalka gabadha markay hadlayso qayli u turjumaan maxay la qaylinaysaa maxay la war badan tahay way nacnac badan tahay madaxii bay qaaday qaarkood maxay sameeyaan marka raggu gabdhahan u sheegaya raggu guryaha bay ka soo dahaan ilaa intaad daashid aad ka seexanaysid sariirta tagaysid guriga kugu soo hoyanayo ninkaada wuxuu isleeyahay wixii baa ka horeeya buuqii baa ku hortaagan ha seexato hala kala dego marka waa dhib moogtahay waa challenge waa taxaddi uu qofkani ka cararay